Qeybtii koowaad waxa ay nooga ekayd bahalkii ay sameeyeen oo ay dhigeen guriyaasha hortooda ayagana ay ka fiirinayaan daaqadaha guriyaashooda. wax yar kadib waxaa soo yeertay shanqarta naagtii sixroolada ahayd, waxayna soo aaday dhankii tuulada. labadii nin ee meesha ku jiray midkii koriye ayaa yidhaahday, walaalkii hoose ayuu wuxuu ku dhahay, ma maqashaa cod? waxaa la gaaray xilligii ay imaan lahayd naagtii sixroolada ahayd. kii hoose ayaa yidhaahday, waxbaa ka cabsan, waxbana naguma samaynayso. naagtii sixroolada ayaa tidhi, yaa tahay, maxaase rabtaa? intana maxaad ka qabanaysaa? xaafadan waa xaafadeeda, qof kalena uma ogolaanayo inuu yimaado. kii hoose ayaa asagoo codkiiska bedelay yidhaahday, tuuladan hadda laga bilaabo adiga ma lihid, ee aniga ayaa leh. naagta sixrooladeed ayaa tidhaahday, maya, ma suurtagelayso, tuuladan keligee ayaa iska leh. kii koreeta ayaa yidhaahday, naagta sixrooladeeda iyo badbaadi, ninkani dadka ayuu dilayaa, qofkuu qabtaana caloosha ayuu gelinayaa, aniga hadda calooshiisa ayuu geliyey. naagta sixrooladeed ayaa bilowday inay soo jiido qoorta bahalkii ay sameeyeen, waxayna la baxday qoortii koreeto, waxaana raacay mid ka mid a labadii nin. kii kalena indhaha ayuu ka fiirinayay, sidii ayayna ku kaxaysatay midkii koreeto, waa ayna qaadatay, waxayna geysatay xaafadeeda. isagana aad ayuu qeylinayay, badbaadiye ayuuna dhahayay. waxayna geysatay meeshii ay dadkii kala geysay. dadkii tuulada oo dhan ayaa isku imaaday. naagtii uu qabay ninkii ay sixroolada qaadatay dhahday, ninkaygii naagta sixrooladeed ayaa qaadatay, waxaana ka cabsanayaa in ay iga disho. midkii kale ayaa yidhi, waxbaa ka cabsan walaashey, waxba kuma samayn karto. naagtii ayaa tiraahday, naagta sixroolada waa wada naqaanaa, qofkii ay mar qabato ma cafiso oo ay dishaa. halkaas ayayna inooga ekaay qaybtii labaad. fadlan si aad ula socoto qaybaha dambe ee sheekadani, subscribe saar channelka, videogana like saar. aad ayaan u mahadsan tahay. fadlan kommentiga waa muhiim, kommentiyo kasoo bixi videogan.